ciyaaryahanka caanka ah ee Soomaaliyeed Magan Daahir Yuusuf ee ciyaarta kubadda miiska una ciyaara xulka qaranka kubadda miiska ee wadanka Netherland ayaa sheegay in loo baahan yahay in guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS ay ku dadaalaan in ay horumariyaan isboortiga Soomaaliya qaybihiisa kala gedisan. ciyaaryahan Magan Daahir oo dhawaan saxaafadda ugu waramayay xafiiskiisa magaalada Leeuwarden ee wadanka Netherland ayaa dhaliil u soo jeediyay guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo uu sheegay in aysan ku dadaalin tababaridda ciyaartoyda Soomaaliyeed waqti walba balse ay dadaal dheeraad ah bixiyaan kaliya xilliyada ay soo dhow yihiin in laga qayb galo ciyaaraha dibadda. guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS waxaan u soo jeedin lahaa in ay ciyaartoydu mar waliba ay siiyaan tababar joogto ah yeysan macnaha kaliya aysan orod aysan gelin marka tababar qarameed la ciyaarayo in ciyaartoy aruuris la gelin waayo ciyaartoydu laguma soo saaro bil iyo laba bil gudaheeda waxay u baahan yihiin waqti far badan waxay u baahan yihiin experience waxay u baahan yihiin lacag far badan la geliyo ciyaartoyda kadib si ay ugu qayb galaan ciyaaraha ugu diyaar garoobaan international. sidoo kale ciyaaryahan Magan waxa uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in garoomada caalamiga ah la geeyo calankii Soomaaliya kaliya balse taas bedelkeeda ay haboonaan lahayd in lagu fikiro in calanka iyo ciyaartoy tayeysan inta la geeyo garoomada caalamiga ah marka ay Soomaalida ka qayb galayaan ciyaaraha caalamiga ah. Olombikada Soomaaliyeed ma ahan in ay mar waliba ay ku fikiraan kaliya sida ay loo geyn lahaa calanka Soomaaliyeed Olombikada. runtii dunidu uma baahna calanka Soomaali in ay la baro dunidu way yaqaanaan calanka Soomaali si sharafta calanka uu leeyahay iyo kalarka wanaagsan laakiin maanta dunidu waxay u baahan yihiin inay arkaan ciyaartoy fara badan oo Soomaali ciyaartoydaas ayaana sumcadda iyo sharafta Soomaali soo celin karayso marka waa inaynu ciyaartoydu concentration ka siinaa. dhanka kale waxa uu ciyaaryahan Magan Daahir qalad ku sheegay in guddiga Olombikada Soomaaliyeed maamulkooda ay badanaa ku dadaalaan ayna qarash badan ku bixiyaan sidii ay u xaadiri lahaayeen garoomada caalamiga ah iyaga oo aan dadaal dheeraad ah ku bixinin in ay garoomada geeyaan ciyaartoy matasha magaca Soomaalida waxaana uu soo jeediyay in ay guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS ay dadaal iyo qarash fara badan ku bixiyaan ciyaartoyda si ay u soo celiyaan sharafta iyo magaca Soomaalida halka ay ku xaadiri lahaayeen tiro aad u fara badan oo ka tirsan maamulka GOS garoomada caalamiga ah marka ay ka qayb galayaan ciyaaraha ay dibadda dalka ugu baxayaan. sanadooyinka la soo dhaafay hadaan ka hadlo ama ciyaarta Olombikada la soo dhaafay waxaad arkaysaa Maxamedow hal ciyaaryahan ama laba 15 iyo 20 ka badan ah dadkii ama maamulkii sare meesha maraya runtii waxay noqotay waxaan u arkaa arin aad u falxun u qaldan maamulku ma ahan in ay meesha ka muuqdaan meesha waa inuu ka muuqdo ciyaartoygu weeyaan waxa macnaha dunida sharaf u soo jiidi karo maamulku sida maamulaha faraha badan ay isu abaabulayaan waxa ka wanaagsan halkii laga gelinahay dhaqaale maamulka in laga geliyo ciyaartoy sababta loo tagay meesha waa ciyaartoy in la soo saaro ciyaartoy ma aha maamulka marka fikradaas ayadu ah qalad ayaan u arkaa in meesha ay maraan maamul fara badan iyo laba ciyaartoy kaliya. isboortiga Soomaalida ayaa waxa uu sheegay ciyaaryahan Magan in loo baahan yahay in GOS ay xooga saarto in ay dhiirigeliso dhammaan qaybaha kala gedisan ee isboortiga balse aysan xooga saarin oo kaliya in ay mar waliba dhiirigeliyaan qaybo ka tirsan isboortiga sida ciyaaraha kubadda cagta kan orodada iyo kuwa kale iyadoo oo aad moodo ayuu yiri Magan in qaybaha kale ee isboortiga Soomaalida la iska iloobay oo aan la siinin wax tixgelin ah. waxaad moodaa saddex qaybood oo sportiska ah kaliya in ay xooga saarayaan xiriirka Olombikada Soomaaliyeed ahna runtii footballka iyo basketballka iyo orodada kaliya runtii sportsku qaybo fara badan yahay waxaana jira waxaad laga yaabaa in ay
jiraan dad fara badan oo talent u leh sportyada kala duwan hadda sida table tennis oo kale ama ciyaarta kubadda miiska waxaa jiro dhalinyaro fara badan xiiseynaya dumaro fara badan oo ciyaarta ka helo oo ay jecel yihiin lehna runtii mustaqbal future-ka marka taana in ay ayaguna concentration ka siiyaan sportyada kala duwan oo dhanba. ugu dambeyntii ayaa ciyaaryahan Magan Daahir waxa uu u soo jeediyay xukuumadda cusub ee Soomaaliya talo ah in ay dhiirigeliso mar waliba isboortiga Soomaalida isaga oo ku sheegay in isboortigu uu sameyn karo isku xirka bulshada gaar ahaan dhalinyarada lagana yaabo haddii isboortiga xoog la saaro in laga bixi karo mushkilada Soomaalida ee daba dheeraatay isaga oo sidoo kalena soo jeediyay in la ogaado oo laga warqabo dadka Soomaaliyeed ee curyaamiinta ah kuwaas oo uu sheegay in laga yaabo in ay ku dhex jiraan dad badan oo wax ku ool ah oo laga yaabo in ay magac iyo sharaf u soo jiidaan shacabka Soomaalida. waxaan u soo jeedin lahaa marka hore dawladda Soomaaliya in aysan fududeysan ama in ay xoog saaraan sports maanta waa tan kaliya sumcadda Soomaali soo celin karo waa dhinaca sportska dhinaca siyaasad Soomaali sumcadeeda kuma soo wanaagsananayso sportsku ayaa maanta soo celin kara sharaftii sumcadda Soomaaliya loo soo dhaweyn karaa dadkuna dhalinyarada waxaad moodaa shacabka in ay kala fadhismaan waxa kaliya isu keeni karo waa sportska maanta xulka qaranka Soomaaliya haday ciyaarto everybody oo Soomaali ah uu daawanaya TV-ga happy ayuu yahay waliba waxaan ku codsan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in markay xulka qaranka Soomaaliya ciyaarayso in uu tarbuunka soo koro oo uu daawado xulka qaranka Soomaaliya waayo ciyaartooydu taa waxay ka qaadayaan dhiirigelin fara badan dadka disabled-ka ah ama wheelchair-ka saaran in ayaguna aynu u baahannahay in sida loo dhiirigelin lahay qalab sports loo gal lahay loo ciyaarsiin lahaa waayo maanta waxaa dunida ka jira Olympic-da ka soo Paralympic oo dheelaan runtii dadka disabled-ka ah oo maanta si professional ay la mid yihiin kuwa kale marka taana waa inaynu xoog saarnaa oo maanta waxaa Soomaaliya ونص disabled marka waxa laga heli karaa halkaan dad fara badan oo sports ka lagu ku macnaha fiican oo future-kana Soomaaliya sumcad u soo jiidi kara. ciyaaryahanka caanka ah ee Soomaaliyeed Magan Daahir Yuusuf ee ciyaarta kubadda miiska una ciyaara xulka qaranka waddanka Netherland ayaa isagu waxa uu soo galay waddanka Netherland sanadkii 1992 kadib markii ay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye ka bilowdeen dalka Soomaaliya waxaana uu dadaal dheeraad ah ku bixiyay sidii uu heer uga gaari lahaa ciyaarta kubadda miiska oo uu horay u ciyaari jiray ilaa uu gaaray heer ah in gebi ahaanba kubadda miiska ee waddanka Netherland iyo dunidaba loo bixiyay magaca ah mucjisada kubadda miiska. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq Universal TV magaalada Leeuwarden ee waddanka Netherland.